ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dib u xuraynta deegaanka ayaa burburiyey saldhigyadii kooxda khawaariijta ay ku lahayd deegaanada bariga gobolka Galgaduud iyaga oo la wareegay deegaano kooxdan khawaariijta ay ka soo duulaan tagi jirtay isla markaana fariisin u ahaa. ciidamadu waxay howlgallada gaarka ah ka fuliyeen Geerile, Xuseen Cagey, Cidda Kuus iyo deegaano kale oo dhowr ah oo u dhexeeya deegaanada Caws Weyne, degmada Galcad iyo sidoo kale degmada Ceeldheer, halkaas oo kooxda khawaariijta Al-Shabaab u ahaa saldhig ay ku dhuumaaleystaan horjoogayaashooda. ciidamadu waxay wadooyinka ka saareen miinooyin kooxda khawaariijta Al-Shabaab ay ku aastay si markaasi loogu dhibaateeyo dadka rakaabka ee wadada isticmaalo. abaandulaha guutada 17aad kumaandooska Gorgor Gaashaanle Cumar Xasan Diino Cumar Deeq oo warbaahinta qaranka kula hadlay deegaanka Geerile ayaa sheegay in ay kaabiga ku hayaan deegaanka Caws Weyne oo haatan saldhig u ah kooxda khawaariijta Al-Shabaab isla markaana ay kala wareegeen deegaan muhiim u ahaa oo kooxdu ay ka soo dagaal tagi jirtay. wuxuu sidoo kale ka warbixiyay miino kooxda khawaariijta Al-Shabaab ay ku aastay wado si aad loo isticmaalo oo gaadiidka rakaabka ay maraan. Gorgor kumaandooska Gorgor waxaa haatan ila jooga oo howlgalkan qayb ka ahaa taliye xigeenka guutada 17aad ciidamada kumaandooska Gorgor. taliye ugu horreyn waxaad ku soo dhawaataa warbaahinta qaranka tan xigta. maanta waxaa la burburiyay rugihii kooxda khawaariijta ay ku lahayd halkan. tilmaam naga sii goobtan iyo sidoo kale kooxii khawaariijta ee halkan joogay firxadkooda meelaha ay beegsadeen. bismillaahir rahmaanir rahiim. marka hore waxaa mahad iskale Allah subhanahu wa ta'ala oo runtii noo suurto galiyay maanta inaan joogno halkan si nabadgelyo ahna ku joogno si nabadna ku joogno. waa runtaa nimanka argagixisada ah iyadoo awoodooda waxay yihiin inay wax soo weeraraan wax soo gaadaan laakiin marnaba uma bacdhigi karaan inay wajahaan ama ka soo jeestaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. xalay استخدحان وحان اوبريشن ugu nimid deegaanadan xiriirisa Ceeldheer ilaa iyo Caws Weyne oo runtii ay ku lahaayeen fariisimo ay dadka ku dulmiyaan oo maaragtay dadka musaafiriinta oo jidka marayaan ay ku dhibaan ay ka soo aabulaan dhagaraha ay maaragtay u dhigaan ciidamada. taasi guulay ku soo dhamaatay goobjoogana waa ahayd. waa la burburiyay saldhigyadoodii ayagana farxadkoodii ilaa ay waxay sii jiraan Caws Weyne. howlgalkan intaas kuma ka doono uu sii soconaa ilaa gobolkan iyo meelaha kale oo bartilmaameedka noo ahna aan ka saarno uuna soconaa hadii la yiraahdo. ha guulaysato ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qaybta ka howlgasha gobolkan gaar ahaan Ceeldheer waxa ay ku wajahan yihiin oo yoolkoodu yahay inay tagaan Caws Weyne oo kooxda khawaariijta hadda ay ku sugantahay isla markaana dad ay ku dhibaateynayso. maalmaha fooda nagu soo suuragal ma tahay in heerada gumaysiga aad ka qaadaan dadka halkaas u neel oo dowladnimadu u helo. runtii waa saxan tahay. Caws Weyne waa meel ayagu istiraatiijiyad u ah waxaan la dhihi karaa waa meesha ay ka difaacayaan Ceelbuur iyo meelaha yararka ay ku harsan yihiin. waana meesha dhibaatooyinka iyo dagaalada ka dhaca Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe iyo Caradan meesha ay ka soo maleegaan. waxaan kala ognahay inay tahay meesha baawarada qaraxyada ah iyo dhagaraha asalka waa inay tahay. masaafahan hadda waa noo dhowdahay waana u jeedaa waana tagaynaa. khawaariijtana waa gabagabo. runtii waxaa maaragtay mahadda iskale Allah subhanahu wa ta'ala oo maanta meesha aan ka wada hadlayno ku soo koobay khawaariijta. waa dareemi karta ereyada hadda ku jiraan iyo meesha la isku haysto markii laga soo tago Shabeellaha Dhexe iyo Galgaduud iyo Hiiraan bartamahan yarka ahna ilaahay idinkiisa waa la soo afjaraa waana laga saaraa waxaana noo bilaabo doona wajiga xigaadii la yiraahdo. waa tahay ciidamadu waxay ku guuleysteen inay soo saaraan miinooyin kooxda khawaariijta ay gelisay jid ay isticmaalayeen dadka waa sax waa jirtaa miinooyin ay u dhigeen dad shacab ah wadooyinka isticmaalayeen adigana waa aragtaan filaa. waa wax ay ku dhibaateynayaan ay rabaan inay ku helaan canshuuraad iyo wax la mid ah. waxay rabaan wado dirqi ah oo yar oo ayagu ay isticmaalayaan inay gaadiidka ku soo leexiyaan si ay ugu soo leexiyaan manaafacaad ama waxay canshuuraadka ku sheegaan uga qaadaan. waa inay kuwii waaweynka marka miineeyaan si aysan u isticmaalin dadka shacabka. ayadaasna waxyaabaan ka hortagayna kamid tahay. miinooyinka la soo saarana kuleyto waa aragtay oo goobjoog u ahayd. marka dhan kale kama laha يعني دجال هذا يكون جيران يودون وكسو كومي قرح ميل جليان ميل كدونتان ميل كعران
marka aad u mahadsan tahay waana soconay hawshan hadii ilaahay yiraahdo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo guuleysanayaan ummadda Soomaaliyeed oo guuleysanay reer galgaduudna waa laga dulqaadaa heeriyada kor saaran inta yarta kaga jira hadii ilaahay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dib u xuraynta deegaanka ayaa u dhaqaaqay deegaanada bariga gobolka Galgaduud oo qawaariishta ay ku sugan tahay isla markaana uu ka mid yahay deegaanka Coosweyne oo haatan kooxdu ay ku sii dhuumaalaysanayso isla markaana ciidamadu ay ku sii baacsanayaan